mudaharaadyada dalka Iiraan ka socda waxa ay qeyb ka yihiin barnaamijka Israa'iil iyo Mareykanku wataan ee maaragtay dib u qaabeynta khariiradaha dalalka bariga dhexe ku yaala, taasoo macnaheedu yahay in dalal maanta jira oo bariga dhexe ku yaala maaragtay meesha laga saari doono, dalal cusub oo aan maanta jirna la abuuri doono ama la samayn doono. Waxaa jira maaragtay dalal ay si negative u saameyn doonto arrintaasi iyo dalal ay si positive u saameyn doonto. dalalka ay sida positive u saameysay waxaa ka mid ah Somaliland oo arrinkaas aqoonsi ku heshay. dalalka ay sida negative u Somaliland ma aha horta dal bariga dhexe ku yaala, laakiin waa dalalka maaragtay ka ag dhow ama maaragtay aadka ugu dhow bariga dhexe. Yemen oo maaragtay Somaliland 260 kilomitir oo kaliya u jirta waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka bariga dhexe, waana dalalka la doonayo in maaragtay khariiradooda dib wax looga bedelo oo maaragtay lagu celiyo sida ahayd 1991 iyo laba loo kala qaybiyo koonfurta Yemen laga dhigo dal ka madax banaan Yemen inteeda kale. marka dalka ugu weyn ee maaragtay saameynta negative ku yeelan doonto barnaamijkan maaragtay dib u qaabeynta khariiradaha dalalka bariga dhexe waxa weeye waa dalka Iiraan ha dhawaato ama ha fogaato dalka Mareykanku wuxuu ku qaadi doonaa dagaal toos ah. arrintaasna waxaa caddayn u ah wixii ka dhacay dalka Venezuela oo maaragtay Venezuela waa dalka haysta shidaalka ugu badan ee caalamka. dhammaan jasiiradda carabta dalalka ku yaala marka la isku geeyo shidaalka ku jira waxa ka badan ka maaragtay dalka Venezuela oo kaliya ku jira. sidaa darteed Mareykanku haddii uu dalka Iiraan uu ku qaado maaragtay dagaal, Iiraan waxay xiri doontaa muddada dagaalku socdo marinada muhiimka ah ee iyada iyo xulafadeedu ay gacanta ku hayaan oo Bab el-Mandeb iyo maaragtay marinka kale maaragtay istiraatiijiga Hormuz ay ugu horeeyaan. haddii labadaasi xirmaana waxa maaragtay istaagi doonta dhammaan maaragtay wax alaali wixii shidaal ahaa ee saliid ahaa ee la geyn jiray Aasiya iyo maaragtay iyo Yurub iyo Ameerika oo maaragtay badinkoodu mari jiray Bab el-Mandeb iyo Hormuz oo labadaba maaragtay dagaalkaas hadduu bilaabmo ku xirmi doono. sidaa darteed Mareykanku wuxuu ku khasbanaaday inuu raadiyo bedel kale oo maaragtay dal kale oo u bedela saliidaas maaragtay uu u baahan yahay muddada uu dagaalka ku jiro. bedelkii ugu fiicnaayo helayna wuxuu ahaa dalka Venezuela, waana ta keentay Mareykanku inuu intuu Venezuela weeraro madaxweynaheedina la soo baxo iyadoo maaragtay caalamka oo dhan wada arkayo maaragtay una qarsaninba.